sidaan ka warqabna imtixaankan ma aha imtixaanka shakhsiyaadka galay oo kaliya sawir ka bixinayo waxaad sidaad warsaxaafadeed ku aragteen imtixaanku wuxuu soo bandhigayaa iskuulaadka wanaagsan juhdiga geliyay caruurta imtixaanka laga garanayaa maamul goboleedka juhdi geliyay waxa laga garanayaa imtixaanka waaridka laftirkiisa ayaa cabir laga qaadanaya waxa cabir laga qaadanaya manhajka laftirkiisa iyo intaasi in ka badan sida aragtaan 6 sano ayuu dhaqankan imtixaanka sidii burburka looga soo noqday uu socdaa mar walbana sida hadda shaxdan ku arkaysaan wuxuu ku bilowday wax ka yar 4,000 wuxuu hadda sanadkan maraya wax ku dhow 34,000 marka waa arkaysaa 4,000 wax ka tagay wax ka yar oo 34,000 marayo sida uu u kobcayo imtixaanka geladiisa iyo ku qanacsanaashadiisa dhinaca kale waxaa arkaysaa ardada daafiirisa sida imtixaanka loo baasay waxaa arkaysaa markuu bilaabanayay in baasku badnaa dhuudhuujis sanad walba dhuudhuujisaa ku socday waa arkaysaa hadda sanadkan baaska meesha ugu yar ayuu marayaa oo mataqaanaa qiyaastii 75 ah markii la bilaabayay 97 ay ahayd dhuudhuujiskaas waa laga maarmaan sanadkan sanadkii hore wuxuu uga duwanaa in imtixaanku uu sanad dugsiye muxuu ahaa high schoolka oo dhan dugsiga sare oo dhan fasalka 9aad ilaa 12aad ayuu imtixaanku ka wada yimid waxa kale uu uga duwanaa asigoo tayada kuwii ka horeeyay oo ka adkaa طبعا ظروف adagna way jirtay oo ardadu imtixaan ku galeen oo wasaaraddu ay qirayso in ظروف adag ahayd sida covid-kii jiradii muxuu ahaa iyo dugsiyadii hakad geliyay waqtiga muraajacada la sameyn jirayna waxay laakiin saasay tahay ardadu marna isku mahlaynin waxay fursadayba ka dhigteen ay wax badan ku akhriyaan ay waqti badan u helaan iyadoo magaalooyinka iyo wuxuu kala xiraayeen oo ay fursad u heleen ayaga iyo buugga waqti ay isku heleen wixii soo baxayna waa taasa wasaaradda ahaan annaga waa ku qanacsanahay in imtixaanku miisaankiisu fiicnaa sidii loo saxayna ay ahayd si runtii aad u wanaagsan waxaa kale oo dhaqan noqotay in imtixaanka si ka dadaalay iyo ka aan dadaalin loo kala ogaado muxuu ahaa in aad la isku taxalluujiyay in imtixaanku xafidnaado munaasabadan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto inaan u mahad celiyo howlwadeennadii runtii la dhihi karo heer mutadawac xitaa lama dhihi karo magac kale loo baxshaa mataqaanaa heerkaas gaarsiiyey imtixaanka inuu qiimo iyo qaayo yeesho miisaan uu yeesho adduunkuna uu ictiraafo guddigii muxuu ahaa mutadawiciinta ahaa muxuu ahaa hawshaas naga xigsaday waxaan rabaa iyagoo fara badan oo la soo koobi karin inaan dhammaantood iraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin khayr waxa ahaad mataqaanaa ummaddu horseedaan ilaahay haydinka jiso fiican sida muuqato waxaad aragteen tartanka 10kii iskuul ee ugu sarreeyay baaska caruurta baramoostay ee gudubtay imtixaanka 10 iskuul ayaan soo bandhignay haddaad 10kii iskuul fiirisid waxaa arkaysaa 5 ka mida inay mataqaanaa jubbaland yihiin waa wax weyn laakiin haddaad jubbaland laftirkeeda dul istaagtid waxaa arkaysaa 4 ka mida inay hal gobol ka yimaadeen oo gada la yiraahdo haddaad gada sii dul istaagtid waxaa arkaysaa magaalada garbaharey labada u korayso ka koobaad iyo ka labaad ayay galeen xogta aan annaga hayno wasaarad ahaan ka soo qaba magaalada garbaharey maqaamkaas waxay ku gaareen tartan iskuulaadku tartameen waaridka caruurta labada iskuul ay tartameen haddii dhinaca maalgelinta iyo macallimiinta iyo muxuu ahaa ardada yani in la kaabo
markaa ka fiirisid magaaladaas magaalad waxbarasho ku tartantay oo caan ku ah ayay noqotay waaridkaa ku tartamo iskuulkeenna iskuulkaas waanu ka ficnaadaa ardaydaa ku tartamayso annaga waanaan ka ficnaanaa iskuulkaas kale dadka bulshada degan oo aan la soconno inay muxuu ahaa laba dariiqood diimeed kala haystaan xitaa labada dariiqood ayaa xitaa tartantay looma kala harin tartanka waxbarashada waa wax wanaagsan intii lagu tartami lahaa qabiilkeenna qabiilkaas ka raynaayo iyo annaga ka qori badan annaga ka dhishii ka badan in lagu tartamo annaga ka waxbarashada uga dadaal badan waa waxa aan rabno waddanka inuu indhihiisu ku soo jeesato waa ammaanaynaa wasaaradda waxbarashada haddaan nahay iyo bahda waxbarashada dhammaanteed tobankaa iskuul aadan u ammaanaynaa waxaan ku boorinaynaa inay sanad walbaba meeshaas ku jiraan inta kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa inay maqaankaas kula tartamaan oo sanadka kale aan aragno wejiyo ka duwan wejiyadan ardayda boqolkaa haddaa fiirisid waxaa arkaysaa boqolkaas saameyn waxa ku yeeshay iskuulaadkaas labadii iskuul wax ka harayba boqolka inay galaan anugu maba aqaanba iyagaa magacoodu soo noqnoqday waa wax wanaagsan waxaan rabnaa qofkii maantay hoos jiro inuu birito kor jiro meelaha ugu liito marka la fiiriyo waa magaalada xamar oo ugu resultiga yar gobolka banaadir gobolka banaadir resultigiisu waa yar yahay maxaa yeele waa magaalo weyn waxaa saameyn ku yeelanaya amniga socdo waxaa saameyn ku yeelanayo muxuu ahaa fursadaha badan oo jiro oo macalinka uu shaqo kale iska heli karo maadaama aan mushaar badan la bixin laakiin waxaan rajaynaynaa in magaalada gobolka banaadir bal waxaan ay isku noqdaan oo wax ka duwan waxa jiro hadda ay wejigaa bedelaan macallimiinta mushaarkooda macallimiin fiican la helo waa la heli karaa waa caasimadii meeshii aqoontii tiile wey waxaan rajaynaynaa in gobolka banaadir oo kor u soo qaado natiijada sababtaan saas u leeyahay waxaa weeye haddaa fiirisid meesha baasku gudbiddu meeshay u badan tahay waa 67 ardada xoogooda boqolkii 50 intii baastay ka badan 55 meelahaasaan qiyaasaya waxay ku jiraan nawaaxiga 60 ilaa 70 macnaha meel dhexe oo aan aqoon weyn ahayn dhacna aan ahayn ayaa dadkii dhooban yahay waxaan rabnaa meeshaas inaan u leexino la iskugu tago dhinaca baaska culus ah marka gobolka banaadir oo ardada imtixaanka gashay markii boqolkii 50 ay ka imaanayso gobolka banaadir haddii ay meeshaa ku jiraan meeshaas in aad looga nuuxsado waa adagta marka xil zaa'ida ayaa gobolka banaadir wuxuu ka saaran yahay in waddanka uu u riixo dhinaca baaska culus oo waxaan rajaynaynaa markii waxbarashadu sii adkaato in baasidu ay timaado 70 ilaa 80 meesha in loo bato ayaa goolku yahay marka waxbarashada tayadeeda aad loo adkeeyo gobolka banaadir mas'uuliyad gaar ah ayaa ka saaran inay meeshaas muxuu ahaa nagu hagaan intaa haddaan niraahno waxaan rabaa inaan mar labaad dul istaago ballantii hore aan qaadnay boqolkaas arday waxay heli doonaan waxbarasho gudaha iyo dibadda jaamacadda ummaddana kaalinta ugu weyn ay ka qaadan doontaa waxbarashadaas maadaama ay tahay jaamacad qaran oo bilaash in lagu dhigtay ay tahay intaa markaan iraahdo waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ardadii Soomaaliyeed runtii juhdiga weyn soo gelisay inay maanta natiijada aan shaacinayno ay soo istaagaan waxaan leeyahay hambaliyo intii baastay waxaan leeyahay hambaliyo intii aan baasin maxaa yeelay waxa iyadana aad guul ah inay ogaadeen levelka ay joogaan waa dhalinyaro way ku noqonayaan sanadka dambe waxayba soo galayaanba meel sare maxaa yeelay 2 sano ayay fursad u haysteen inay muxuu ahaa imtixaan isku diyaariyaan waxaan rabaa inaan iraahdo waalidiinta duruufta adag caruurta Soomaaliyeed wax ku bartay iyagana waxaan rabaa inaan iraahdo hambaliyo maantay caruurtiina guulay gaareen
guushay gaareenna waa guushiina intaa markaa iraado waxaan rabaa inaan ku soo gunaanido in aan mar labaad u mahad celiyo howlwadeennada wasaaradda waxbarashada iyo howlwadeennada wasaaradaha waxbarashada ee dowlad goboleedyada oo runtii dhammaantood kaalin weyn ka galay muxuu ahaa horumarinta tacliinta hadday tahay imtixaanaadka hadday tahay manaahijta hadday tahay kormeerka hadday tahay macluumaadka aruurintooda iyo hadday tahay muxuu ahaa tarbiyaynta hoose intaba